الله صلى الله عليه وسلم دمان bahda warbaahinta horteeda taagan ee kala duwan u dabran oo diyaarsan baahinta wararka iyo xaqiiqooyinka dalka waa islaamaya oo idin mahad celiya ka soo qaybgalka kulankeenan afayeenka madaxweynaha dhameeyay kulankan iyo wuxuu ku aadanaa iyo wuxuu daaranaa iyo wuxuu la higsanayo iyo ballanqaadyada mustaqbalka dhow soo socda sidaad ka warqabtaan muddo 3 bilooda shaqaalaha dawladdu wuxuu ku jiray hakad loo hakiyay xaaladaha dalkeena oo ugu horeyso gurmadka iyo taakulinta loogu jira abaaraha oo la rajeynaya 3 bilood kadib shaqaalaheena inaynu xulashadoodii iyo hufidoodii aynu bilowno 3 bilood baa soo dhamaaday taladan maanta la isugu yimid madaxweynaha aan uga soo qayb galay waxay xaaladda halka ku xigaysa sida aad ogtihiin abaarihii iyo xaaladaheena adka ilaahay subxaanahu wa ta'ala aynu ka baryeen inuu naga soo jabiyo maadaama ay wali socdaan talada waxay noqotay in shaqaalihii dawladda la hakiyo ilaa xaaladeenu sidan ka soo reysanayso oo aynu u diyaar garoobayno inay ka dhigno qorida shaqaalaha mar labaad baa mudnaanta koowaad ee qaranka saad ogeydeen qaadashada shaqaalaha iyo shaqaalaysiinta dhalinyaradu waxay mudnaanta koowaad ee qaranka maadaama ay mudnaan weynatay muddo abaaraha ah saasoo hakadku ku yimid ilaa muddo dambana ay u socon doontaa waxa aad iyo aad u farxada waxaanu saaka dhammaan hay'adda shaqaaluhu aan isugu hambalyeynayna qarankana ugu hambalyeynayna noolaynta haybadda hay'adda shaqaalaha dawladda soo celinta haykalka iyo hufnaanta iyo haybadii hay'adu lahayd in ay tahay xarunta kaliya xulidda qaranka xulidda qaranku inay hay'addu kaliya tahay cidda loo daba fadhiyo hay'adda shaqaalaha dawladdu inay tahay cidda loo daba fadhiyo mandate-ka dastuuriga u leh in boorka laga jafo oo maanta annaga iyo madaxweynuhu foolka fool uga sheekaysano shaqaalaha goorta la qaadan kariyo sida loo qaadanayo hufnaantooda iyo dhammaantoodba waan iskugu hambalyeynayna waan iskula faraxsanahay dhammaanteen waxay noo ballan xaaladeenu intan ka duwan inaynu mar kale iskugu nimaadno inagoo shaacinayna furitaankii shaqaalaha dawladda tartamadoodii iyo xilliyada la qaadayo gobolada iyo goobaha aynu ka bilaabi doonno qaadashada shaqaalaha dawladdu ku koobnaan mayso oo kaliya xarunta dhexe iyo hargeysa oo kaliya laga qaatay waxay noqon doontaa mid gobol walba iyo goob walba iyo guri walba ugu gasha oo khayraadka shaqaalaha dawladda inuu haysanno si wanaagsan oo hufan ay u baahan gobol walba iyo goob walba imtixaamada iyo tartankeenu ay ka dhacdo waan uga hambalyeynay uga mahad celinay madaxweynaha qaabilaadaas iyo haybadeynta iyo muunaynta hay'adda shaqaalaha aan ku wadno inuu isna garabkiisa iyo dhinaciisa oo nagala galay insha Allah waa inoo kulan dambe iyo bal dambe iyo